كريم ناتورال وجهاada white qurux baad ku siinaya cadaan dabiiciina aad ka helayso anti aging iyo collagen labaynta wejigaada kuu soo celin dheeh wejiga kaa dhintay kuu soo celinayo sidoo kale haddii aad leedahay duuduub ama laalaab ama haaro nabar intay kaasoo baxeen haarihii ay kugu reebeen oo kalo inta wuu kaa caawinaya labaynta wejigaada wuu kuu soo celinayaa wejigaada qoyaan ku filan ayuu kuu siinayaa insha Allah waxaan rajeynayaa inaad nagala faa'iidaysateen muuqaalkana aad nala sheer gareey doontaan si asxaab kale walaalo kale fara badan kara muuqaalkeena muuqaalka qaybihiisa kale nala daawo bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawaada asxaabta qaaliga waa mar kale iyo muuqaal kale cusub isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay muuqaalkeena ayaan bilaabanaynaa insha Allah nala daawo muuqaalka oo nagala bogo asxaabtaada kale la wadaag oo usii sheer garee sida halkaa idinkaga muuqato waxaan kusoo shubtay waa bariis in yaroo bariis ah sidoo kale waxaan kusoo darsaday 4 xabo oo almond ama loos ah waxaan kaloo kusoo darsanayaa biyo ayaan kusoo darayaa marka waxaan sameynayaa biyahan iyo waxaan isla soo dhigayaa bariiska ama looska muddo 1 saac ama 1 saac iyo bar ugu badnaan 2 saacadood ah ayaad isla dhigaysaa oo aad ugu tagaysaa si markaas bariiskaas iyo looskan ay u jilcaan waad iska dhigaysaa waad soo shaqaysanaysaa waad usoo laabanaysaa marka ay kuu jilcaan oo sidii laga rabay ay kuu noqdaan ayaad usoo laabanaysaa inshallah kareemkan wuxuu kaa caawin doonaa haddii aad leedahay nabro ama nabray intay kaa baxeen ay haaro kugu reebeen madmadowga indhaha hoostiisa duuduubka laalaabka miinta ama gabowga qofka sida u yaqaano inta wuu kaa caawinayaa cadaan dabiiciyana wuu kuu siinaya wejigaada cadaan qurux badan ayuu welibana kuu siinaya si natural ayuu kuugu cadaynayaa oo kiimika aanan ahayn waa kana hadda asxaabtay sida ujeedaan waan usoo laabanay يعني muuqaal ahaan isma lahan markii hore iyo hadda bariiska xitaa inuu soo bato ayaa moodaa looska waa kaasa sidoo kale qolofka ayaa ka diirmaya marka hore looska wuu adag yahay qolofka xitaa si adag ayaad ugu fiiqaysa hadii waa ka fiiqaya dhahda laakiin hadda waa kanaa si sahlan ayuu qolofka kaaga fiiqmaya qolofka ayaan ka wada fiiqaynaa ama waan ka wada diiraynaa gebi ahaantiisba insha Allah waan shiidi doonaa iyo waxyaabihii kale aan ku dardari doono waan isla arki doonaa muuqaalka nala dhameyso oo nala bogo asxaabtaada kalena la wadaag si ayagana ugu faa'iidaystaan haddii aad horey noola joogtay waan kaaga mahadcelinaa daawashada muuqaalka noo like garay haddii aad nagu cusub tahayna soo dhawow kanaalka subscribe noo dheh noo sii share garay comment qurux badan oo dhiirigelin noo reeb waan idinkaga mahadcelinaa daawashada muuqaalka soo dhawaada ayaan idin leeyahay waa kana hadda qolofka waan ka wada diiray waan soo shiidaynaa waan isla arkaynaa sida uu noo noqdo iyo kareemka aan kasoo saari doono insha Allah muuqaalka nala dhameyso bilow ilaa dhammaad waan soo shiidaynaa insha Allah waa kana hadda asxaabteyda qaaliga sida ujeedaanba waan soo shiiday waan miiraynaa markii aan miirno waxaan ugu baahanahay intaa yar ee caanahaas ama dheecaankaas oo cadaanka bas ayaa loo baahan yahay inta kale waan iska reebi doonaa insha Allah nala daawo muuqaalka oo nagala bogo nala dhameyso kareemkan whiten qurux badan aad ka helaysaa sidoo kale dheeha wejiga kaa dhintay wuu kuu soo celinayaa sidoo kale waxa aad ka helaysaa waxay tahay qoyaan kugu filan ayuu kuu siinayaa moisturizer aad ka helaysaa labaynta wejigaada ayuu kuu soo celinayaa cadaan qurux badan ayaad ka helaysaa cadaanta markii aan ku leeyahay maaha cadaantan 3 beriga ama 3 dayska oo waxyaabaha kiimikalka waa cadaan natural ah wax natural aad marsato waxyaabaha naturalka markaad isticmaalaysana waxay u baahan yihiin inaad joogtayso ama waqti aad soo geliso sooma marka subax kasta ayaad marsanaysaa kareemkan wejigaada weji qurux badan dhalaalaya iftiimaya aad u qurux badan ayuu kuu noqonayaa hadda sida halkaa idinkaga muuqato waxaan kusoo darsaday waxay tahay 1 qaado oo dacar ama aloe vera gel ah sidoo kale waxaan kusoo darsaday coconut oil ama saliidda qumbaha midda fadhisa ayaan kusoo darsaday waxaan kaloo hadda kusoo darsanayaa waxay tahay saliidda la yiraahdo almond oil ama saliidda castor oil waaye almond oil aan dhihin castor oilka ama saliidda qumbaha coconutka moisturizer kuu siinaya wejigaada qoyaan ku filan aad ka helaysaa haddii markaas aadan heli karin saliidda qumbaha midda fadhisa midda xitaa dareeraha ah waad ku darsan kartaa muhiim maahan inaad haysato midda oo yacni fadhiso haddii aad iyada midda fadhiso haysato organic ahna aad ay ugu fiican tahay wejigaada oo xitaa iyada keligeeda waad ku masaajiin kartaa masaajaad ku samayn kartaa wejigaada weji qurux badan ay kaaga dhigaysaa
bariiska sidoo kale madmadowga wejiga ku yimaado, haaraha, nabraha, hooska wejiga galo, duuduubka, laalaabka waxyaabahaas oo dhan ayuu kaa saaraya wuu ku cadeynaya wejigaada. Looska sidoo kale asigana waa alaab yar oo dabiici ah gurigaada gacantaadana aad ku diyaarsan karto wejigaadana kuu qurux badnaysiinayso waqti badanna uusan kaa galaynin qarash badanna uusan kaa galaynin wejigaadana aad iyo aad kuugu qurux badnaysiinayso. Hadda waan qasayaa sida ujeedid waxaan sameynaynaa kareem inaba aan caadi ahayn sida hore usoo aragteen kareem uu ahay sooma. Hadda kareemka ayaan ka dhigaynaa sida ujeedaan waxaan soo saartay digsiga dabka. Dabkana waxaa la rabaa in aad low aad ka dhigto meesha ugu hooseyso aad geyso yacni qasitaanka ama labitaankana aadan ka joojin ilaa uu kaaga noqonayo kareemkii. Haddii marka aad ka joojiso kuuskuus ayuu kaa noqonayaa midba meel ayuu kaa fariisanaya. Marka waa inaad sidaas aad u qastaa ama aad u labtaa ilaa uu kaaga noqonayo sidii loo baahnayo uu kaaga noqonayo. Marka hadda marba marka ka dambeysa wuu isu soo bedelaysaa ujeedaan isku muuqaal ma aha markii hore iyo hadda markaasaa kareem kareem camal ayuu soo noqonaya wuu isu soo bedelaya marka sidaas ayaa laga rabaa inaadan qaadada aadan ka joojinin ama qasitaanka. Markaasaa hadda kareem iswato ayuu noqdo wuu israacay sidaad ujeedaan maasha Allah. Inaad ka faa'iidaysateen aan rajeynaya asxaabta. Waa alaab yar oo waqti yar oo kooban aad ku samaysan karto natural ah yacni wax dhibaato ahna kuu geyneynin. Whiten qurux badanna aad ka helayso yacni anti aging aad ka helayso faa'iidooyin fara badan wejigaada u leh dheeha wejigaada kuu celinayo ama labeenta wejigaada kuu soo celinayo yacni qoyaan ku filan wejigaada kuu siinaya haddii aad tahay dadka wejigooda yacni qallalan yahay ama uu daalan yahay uu yahayna wuu kuu jilcinaya wejigaada aad ayuu kuugu qurux badnaysiinaya qolofta khayraadda waxyaabaha wejiga kaa saaran oo dhan wuu kaa nadiifinayaa duuduubkii laalaabka wejiga ku yimaado sidoo kale wuu kaa caawinayaa wejigaada baby face ayuu kaaga dhigayaa insha Allah waxaan rajeynayaa inaad adigana ka faa'iidaysatay asxaabtaada kalena aad ugu faa'iidey doonto muuqaalkana aad like ku cimaamadi doonto. Hadda waa kaasaa waxaan ku darsanayaa yacni seerumka collagen-ka aan ku darsanayaa adiga any serum aad haysato ee ku munaasibayo ee gurigaada ku yaalo ayaad ku darsanaysaa haddaa vitamin C ku darsanaysid haddaa collagen ku darsanaysid adiga midka aad haysato wejigaada aad marsato ayaad ku darsanaysaa. Waa kaasaa maasha Allah tabaaraka Allah kareemkaas quruxda badan ayaa ka soo baxay wixii indhaha deeqa uurkana deeqa soo lama dhihi jirin. Waa kaasaa inaba caadi maahan maasha Allah weji isku eg qurux badan aan kala nuuc ahayn inaba aan caadi ahayn ayuu kaaga dhigayaa. Waxaan ku dhahay weel yar ku shubanaysaa fridge-kaada iska gashanaysaa subax kasta ayaa marsanaysaa wejigaada lagama sheekeyn karo ku dhaca cadaanta quruxda dhalaalkiisa adiga isjeclaa doontida ku dhaca kaale iska arag maasha Allah hadda waa kan weelkan aan kusoo shubanaya fridge-ka iska gashanaya adigana sidaan oo kale u samayso sidaan oo kale u diyaarso waa idinkaga mahadcelina haddii aad halkan ila soo gaarteen aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ayaad leeyahay asxaabtayda maalmahan waan kala maqnayn hadda dib ayaan usoo laaban doonaa waxaan leeyahay muuqaalka like noogu dhiirigeliya subscribe sidoo kale comment qurux badan oo dhiirigelin ii reeb aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelin maalmahan waxba sooma duubin hadda warkii yaaba iga dhudhumaayo oo waxaan ku dhahay codayntii ayaaba aad ugu dhib qabaa soo dhawaad.